sheekh gabdhaha xaaska ah oo nimanka ka shukaansada khadka maxay diintu ka qabtaa waa ceeb aad u weyn adoo nin leh oo guri leh oo reer leh oo nin cismadiisa ku jira inaad shukaansi kala gashaay waa dambi aad u weyn inaad internet ka gasho iyo inaad toos u gashana waa isku mid sooma inaad darbiga gadaashiisa shukaansi ka samayso iyo face to face inaad u samaysaay waxba kuma kala duwana u fiirsada xataa wax kale iska dhaaf haweeneyda la furay ilaa cidadeeda ay dhamaysato ma shukaansan karto haweeney reer lahoo guri la iska badaa arrintaasi marka faaxisho waaye waa arrin fool xun dambi aada u fool xun waaye inta badanna waxaa ka dhasha inay guryuhu burburaan dhowr siba way u burburayaan haweeneydan horta guriga leh ee shukaansiga ku jirtaay cuquubaa horta ku imaano yacni wax weeyaan ilaahay tabaaraka watacaala ma mooga waa masalada labaadee waxaa ka muuqata kalsooni la-aan ayna gurigeediiyo reerkeeda ku kalsoonayn waa masalada saddexaade waxay u badan tahay ragga waxaa ku jira qaar waraabo ah rag yey abaa ku jira oo meeshan internetka balaayo dhan baa dhex fadhida sidii hadda ka horba dhacday qisooyin fara badan bay leedahay iyo dhacdooyin fara badan oo noocaasa mid beenaalo ah oo haamaan ah oo kaba calaf ah ayaa wuxuu isaga dhigahayaa balaayo guri bay leedahay way degan tahay balaayay gashay badweyn bay gashay afkaa loo macaanayn ninkeedii baa loo khadhaadhayn waxaan jirin baa la tusi maalinta dambe waxaa dhici karaysa in ay god ku dhacdo dumar fara badanna way ku dhacday dumar fara badan oo qisooyinkooda haddaan idinka sheekay aada la yaabaysaan ayaa guryahoodii ku burbureen oo aakharo ku seegay oo adduunkoodii ku burburay oo ceebo badan la kulmay sidaas daraaddeed cuquubadeedu way soo degdegtaa waxaan idin dhihi lahaa haddii aadan gurigaaga iyo ninkaaga ku kalsoonayn ilaahay jid buu kuu furee intaad iska furto guur raadso soo maa haddii kaleetana guri baad leedaho reer baad leedahay alxamdulilah intaad tidhaahdo waxba kaama maqnee meeshan qashinqubka ah ee balaayo dhan ku dhex jirta waxba kaagama maqnee iska daa waa arrin aada u foolxunoo xaaraan ah weliba dembi aada u culusa waay guryo badanna waa ku burbureen dhib badanna waa ka dhashay waana aafaadka ay leedahay internetku soo kordhiyey ayay ka mid tahay marka ilaahay laga boqo wallahu aclam